السلام عليكم دمان أصحابتك وحيران جنالك مهداي ميديا كسو دوادا مهداي ميديا qodobkan idin soo gudbin doona maanta waxa uu ka hadli doonaa buundada dunida ugu dheer ee badda dul marta oo la furay maxaad kala socotaa arintaasi ayaan idinkugu soo gudbin doonaa Mahaday Media halka laga furay iyo sidoo kale sawirada buundadaas ayaan idin soo gudbin doonaa oo la soo bandhigay insha Allah buundadan oo ku taala dalka Shiinaha oo ay sawiradeeda idin muuqdaan waa buundada ugu weyn oo badda dusheeda marta oo dunida laga dhiso buundadan dherirkeedu waxa uu gaarayaa 55 kilomitir oo qayb ka mid ah badda hoosteeda la mariyay waxaana laga hirgeliyay dalka Shiinaha furitaanka buundadan xilligii lagu waday waxay ka dib dhacday muddo 2 sano ah haddaba ila arka sawirada buundadan oo muujinaya habka loo sameeyay iyo qaabka quruxda badan ee ay u sameeysan tahay buundadan oo bilow ilaa dhamaad laba haad leh waxay 20 jibaar ka dheer tahay buundada San Francisco's Golden Gate buundadan waxa loo naqshadeeyay qaab ay isaga caawin karto dhul gariirka iyo duufaanta inta badan badaha Shiinaha ku dhufta maraakiibta socodkoodu si ay buundadu u hakinin waxa loo sameeyay laba jasiiradood iyada oo ay buundadu 6.7 kilomitir oo kamid ah ay badda hoosteeda marayso buundada oo sii maraysa meel ku dhow marinka diyaaradaha Hong Kong waxay injineeradu si aad ah ay uga taxadireen jooga buundada in aysan aad u dheereyn si aysan duulimaadka diyaaradaha u hakinin dhismaha buundadan oo la bilaabay 2009kii dhismaheedu waxa ku kacay miisaaniyad ka badan 20 bilyan oo dollarka Mareykanka ah furitaanka rasmiga ah ee buundadan oo lagu waday 2016kii marar badan dib u dhac ku yimid bishan in la furo ayuu qorshuhu ahaa balse wali waxa la sheegayaa in sanadkan gudihiisa la furayo laakiin lama sheegin xilliga rasmiga ah ee la furayo buundada miisaaniyada faraha badan ee dhismaha buundada ku baxay waxa u dheer waa buundadii shaqaalihii ugu badnaa ay ku dhintaan inta uu dhismaheedu socday buundadu waxay xiriirinaysaa 3 qaybood oo kala go'naa oo kala ah Macau, Hong Kong iyo dhulweynaha Shiinaha basaska iyo gawaarida kale ee ganacsiga oo rakaab sida ayaa buundada adeegsan doona balse takaasida caadiga ah iyo gawaarida gaarka loo leeyahay kuwa ku kooban oo fasax u haysta mooyee buundada ma isticmaali karaan safarka buundada ee lagu marayo Hong Kong ilaa mainland inta u dhaxaysa waxa qofka laga rabaa in uu sii maro 2 xafiis oo kuwa socdaalka ah oo buundada dusheeda xafiisyo ku leh maxaa buundadan loo dhisay waxa loo dhisay in safarka qaadan jiray ugu yaraan 4 saacadood loo soo gaabiyo ugu badnaan 30 daqiiqo qaar ka mid ah shacabka Hong Kong ayaa sheegay in buundadan aan loo baahnayn balse ujeedada Shiinaha uu u dhisay ay tahay in uu xidhiidhiyo Hong Kong iyo mainland